joogne garowshiya weyne gudcurkii cadduu dhalay dhulkii geeriyeysna garabyo rag buu helay. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مدن يالي مروي سوماليدا فيرسانيسا مناسبة مركز الدين كجوكتو وحمد السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يالي مروي مقعي ودكتور أبو كلام عدى وحانا هاي تقتل عافيمات ولح الفد عالمية وحان ليه حرن عافيمات أقول ليستي وكنت على وغيق أمريكا وحانا هاي آبع لح كويس وناكسن ولا جعلي هاي ما أنت هرتين الحانوين إن إدين عبدي إن المشرح مدحوني التاجن وقانك الدولة الفدرالية الصومالية. هل كان اسمه تاجن إن المقع عم هنتك السمعية مدحتني من الصومالية الحانوين إن كقيت قاته سنة بحنتا دت كنا يدل كنا ولنا يال يمروين صوماليا وودن كوي صدق سنة كسو جري حسيلوني درة يجهورير سياسيات waxaan soo marnay dagaal sokeeye dawladda ku meel gaar ah iyo kuwa aan ku meel gaar ahayn waxa la yaab leh in Soomaaliya muddo dheer dagi la adahay annagoo ah dad isku diin isku dhaqan iyo isku istira haddii alla ii idmo aan madaxweyne ka noqdo waddanka waxaan ka shaqayn doonaa sugidda amniga annagoo xoojin doona ciidamada militariga booliiska sirdoonka si ay nooga difaacaan cadowga gudaha iyo kan dibadda. ciidamadeenu waa inay ka koobnaadaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan waana inay ka yimaadaan gobol kasta waa inay isku dhafan yihiin ay hal hoggaan oo midaysan leeyihiin. waxaan kaloo ka shaqayn doonaa dib u heshiisiin dhab ah inay ka qabsoonto waddanka. saa u ogsoontihiin Soomaaliya waxay soo martay dagaal sokeeye shaki badan dhexdooda soo dhexgelisay. haddii aan madax ka noqdo waddanka waxaan ku dadaali doonaa inaan sameyno dib u heshiisiin dhab ah. waxaan dhammaystiri doonaa dastuurka qabyada ah sida ugu dhaqsiyada badan. waxaan hirgelin doonaa ku dhaqankiisa si loo gaaro dowlad wanaag. qodob muhiima oo loo baahan yahay inaan dowladdeeda ka shaqaysto waa midnimada Soomaaliya. waxaan la furi doonaa walaalaheen Soomaalida waqooyi wada hadal daacad ku dhisan iyo walaalnimo si dalkeena loo xasiliyo nabad waarta iyo midnimo loo gaaro. waxaan la furi doonaa wada hadal cid kastoo diyaar u ah. xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyadana waan xoojin doonaa. waxaan dadaal weyn gelin doonaa in dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada si daacad u wada shaqeeyaan ayagoo tixgelinaya in danta qaran ay ka weyn tahay danaha gaarka ah. xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa xakameyn doona ku dhaqanka dastuurka dalka. siyaasadda dibadda waxaan xiriir xooggan la sameyn doonaa dowladaha deriska. waxaana la yeelan doonaa daris wanaag nabad kuwala noolaasho faragelin la'aan arrimaha gudaha. haddii alla idmo waxaan gaarsiin doonaa waddanka doorasho qof iyo cod ah oo aan shaqadeeda la bilaabi doono 100 maalmood ugu horeysa xukuumaddeeda. gunaanad waxaan Soomaali leeyahay Soomaali ha noolaato. assalaamu calaykum waraxmatullahi